لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يمناك أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك أروي الترب من دمعي سرورا في محياك فكم أسهرت من ليل لأرقد من الأجفان وكم أغمضت من جوف لترويني بتحنان ويوم مرضت لا أنسى قال للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون سلاح النووي وأنا عالمك كفافين sababtu maxay tahay marka la weydiiyana wuxuu leeyahay waxaan ka cabsi qabnaa dad aan mas'uuliin ahayn inuu gacantooda ku dhaco ay dunida halaagsanaato iyadoo taariikhda caalamka la leeyahay ummadda qure غayru mas'uulka wali isticmaashay waa Mareykanna في العالم ummad kale oo isticmaashay ma maqasheen al-umma al-wahida غayru mas'uula ee dunida intay ku isticmaashay ku tijaabisay Hiroshima iyo Nagasaki iyo meelaha ka ku riday waa isaga waa طريقة cowboy Soomaalida nin geel jira la yiraahdo wax badan sameeyo meedan aqoon muqaamarada iyo yaani nolosha waxa ka yaqaana Mareykanna war xataa alcaabtiisu waxaan la ciyaaro bal u fiirso ciyaar kasta Mareykanka ka timaada ciyaaraha Mareykanka waa maxay waa feerka American football tan madaxa la istaro baashan budka la dhacay baseballka la yiraahdo al-musaaraca baashan layslagide caynkaas loo isticmaalo حتى وحو عيارته ويقانا عقلية يا حب يا رسول الله غوثا ومددا يا رسول الله عليك المعتمد يا رسول الله فرج كربنا ما رآك الكرب إلا وشرد هذا ودنك هذا يا رسول الله فرج كربنا ما رآك الكرب إلا وشرد أما بصيرك سوقبه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي نفعنا الله به شيخ عمر باسي زيادة دونه وحيري قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي وحيري إيش الدافك قبطا قرح له وإنكر تابي عرب كبو كان به إنكرابي نفعنا الله به محي كده الواحد كجر إل دافك قبطا قرح وإنكر تابي يعني غزوة أحد ما يلون يا إخواني أمت ما يلون وهذا موضوع آخر والله إنا نقلين إن هديرتان والله إنا نقلين إن هديرتان إن ما أنت يتدتك مسلمين تهي عران ودين تهي كعران وإذا سوى استاقان ما حاكيني ما أنت يتو وحاكيني لأنه الرسول كيبان خلافني أيها الإخوان الرسول كيبان خلافني مركزا لنا مسلمين فانا مسلمين منهن بما شاقينا يعني بنت الشاقي منهن المسلمين منهن في عن رسولك عليه الصلاة والسلام مالك أحد مركا يكو صارتي سقال ننكو صارتي سقال يكو صارتي والرسول كان عليه الصلاة والسلام كتغن رمادي من كان كتغن وولده مكر النفتي وولده منكر لكن وادي ذي أيها المسلمون إلي هلما إلي ولا يعرم ماشي يردن سقال كلا السعودية لما كسارتي سعد بن أبي وقاص يوحى كساري ما أنت ماركيسا طلحة بن عبيد الله يا كساري سقال كلا الليل كدير يوقف سوى ذلك أوي وردت كيشالتك أم عمارة أوي قبله شالتك قال لي أوي ورسولك يسولك أوي دينتي بالك عرب صلى الله عليه وسلم أنتو سنبي قرنين وحو فرين أدري قريه سيودن قريه سوا أمسا وسقال قري وي سقال حاسب النبي مركا قبا عليه الصلاة والسلام
bal inay waxayaan mid walba waxay ku soo jawaabtay weliba dhaar ka hormarisay waaladii bacaka bilxaqi maa cindii ilaa maa biyo waxaan ahayn ma haysto waxaan biyo ahayn ma hayo mid walba saasay ku dhaaratay arsheekhow tan arma ila yarleexataayo yaa aanu istusinaa qiimada adduunka ay leedahay iyo in meesha ilaahay agtiisa ay ka joogto haddii adduunya ay wax ay tahay ma guryaha nebigaas sidaa noqon laha oo biyo 9 guri wey hadda guri keliya maaha 9 guri mid walbaba marka waxaa naga dhaxaysa qaad cune iyo sigaar cabbe iyo raamaale iyo kuwa dhagaha biraha jalow kale yihiin waa geel caruur qaatay ma dheere dacwaa naga dhaxaysa waa daba soconayna ilaa aan soo ridno markii mid khamre cabbay nabiga loo keenay ee uu yidhi dhangadeeya mid baa intuu xanaaqay dhowr goor baa la keenay akhzaakallah buu yidhi duf ku bax mar walba waa cabbaa waa la keenaa nabiga kii buu canaantoo yidhi laa tuciinu calayhi shaydaan duf waaba ku baxay intaa ka badan miyaad la rabtaa can dariiq jabahaad bay ka soo gelayaan jabahaadka aad arkaysaa waa mididii xabashida iyo cadowga mididoodii weeye midida ay ku ugaarsanayaan weeye oo iyagu qolo walba leh maanta magaalo walba intay istaagaan kule soo gala annagaa soo gelinay isagii baa la adoonsanaya iyo dadkiisii wuxuu ku leeyahay annagaa soo gelinay tigada ka dhacday waad ogeydeen waxaa la yidhaha ninkii ciidanka markii uu qabsadayo soo galay haye war xabashii ma haysata 40 kun oo ciidanaa ku jira xabashii ma haysata waddankaana haysta nasiib xumad dhowr usbuuc ka horna wuxuu lahaa war tolo waa xabashiisee waddanka uga saaraa oo soodigii lahaa maa waddankana haysta xabashidaa sheegaysaa waa maxaa ka timid marka jabahaadka macnaheedu waxa weeye qabaa'ilkii iyo dadkii Soomaalidu meel cilaa bay ku dhimanayaan waxay ku dhimanayaan midi uu jabhad sito oo isagana mididii lagu shaqaysanayo uu yahay oo ay acdaadu ay wataan weeye sida waaqaca weeye hadallada waxaan u leeyahay aniga wax haba yaraatee shaki igagama jiraan naxdina igagama jirto waaqaca dalkeena iyo dadkeena ka jira inaan si run ah u cabiro aan haba yaraatee ka fakirin waxa ka ratimi doona shaqo kuma lihi laakiin waxa shaqadaydu tahay oo runtu tahay haddaan halkan fadhiyo ilaahay dartiis sida ay ila tahay oo muuqaalka sida qoraxda u muuqata inaynaan xag iyo xagga toona ka marin min waliba jabhadkiisa marka la taabto wadaadadeenan halkan fadhiya jabhadkiisa marka la taabto waad xanuunsanaysaa ugu yaraan waxaad jeclaanaysaa haddaan jabhadkay adiga kaagii taabtay mid kalena inaan taabto ilaa si kale caafimaad u ahaan maysid adigoo halkan fadhiya haweenaydaydu xaaskaygu nin gacan u soo taagay gacantiisa iskama becelisaba yacba ma dhahdaba macnaheedu waxa weeyaan waa hebed ma taqaanaan xoolaha waxaa jira neef walba iska nuugo neefka u yimaadaba aanba lahaynba maaragtay waxba aan diidinba yacni xaaskaygu nin gacan u soo taagay iskama becelisa buu yidhi xadiidka abu daawuud ku yaalla markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam talliqhaa fur buu nabigu yidhi sal lla alay wasalam naag aan gacanba iska celinayn naag kuu noqon maysa iska fur buu markaasuu yidhi rasuul allow waxaan ka cabsanayaa inay naftu iga raacdo aad baan u jeclahayo haddaan furo inaan ka maari mooyaan ka cabsanoo naftaydu raacdo markaasuu nabigu ku yidhi sal lla alay wasalam dee iska qab marka wax kaloo lagula taliyo ma jireen iska qab iska haysa marka معناها الطلبي هو النبي اختلاف عقيدة أويان بل اختلاف أصل العقيدة أهويان إلهي بأن مركو رب اسكوا وافق سنين سبحانه وتعالى ولذلك لعنه الله آية الله مركو قبص خميني وحا أقوه وكو واجبية لي بعد الصلاة إني أخريان وحا كمدها إنه إلهي لعن أبو بكر عمر عائشة حفصة لعن الله صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما إلهي هل لعنده صنمي قريش أبو بكر عمر بأولجيدا وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما وعائشة هي حفصة أننا عائشة وحويان مع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ورا ليال واحد كسر دواتان محاضرة دي اللبات أو عوان كذي هي هو يدا مسلمة ضاه هي تربيينتا هي دور كأي كل هذا هي تربيينتا فع صوص على جيل كصوص على تربيينتي سدوا كأي كل هذا هو يدا مسلمة دي وإنه آخر دونه فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وصفيه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخوتي في العقيدة، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. waxaan isku dayaa mowduuca walaaladu ay tilmaameen lay tilmaamay inaan ka hadlo oo ah al-umma al-muslima wa dowruha fi tarbiyati al-ajyaal, ama hooyada muslimka ah iyo kobcinta faca soo socda ama jiilasha soo socda inaan wax ka idhaahdo. hooyadu muslimadda ahi iyo dowrka ay ku leedahay jiilka soo socda, runtii waxaan odhan karaaba mowduucu mala xataa cinwaanka in la bedelaaba ka roon, waayo al-ummi almuslima lama tilmaamay inay dowr ku leedahay jiilka soo socdee iyadaa ah yacni saanicatul-jiil, iyadaa ah ta soo saartaba, ta samaysa ama soo saarta bulshada cusubba iyadaa ah. sida awgeed hooyada murabbiyadda ah waa masdaru quwa bay yidhaahdaan, waa waxyaabaha ugu xooga badan leh ee bulsho ama ummade ay haysato. waxay yidhahdaan hooyada murabbiyadda ahi umamka way kaga xoog badan tahay ciidanka, yani military dhan oo hubkiisa iyo kaarayaashiisa wata waa kaga xoog badan tahay hooyadu jiilka cusub soo saarkeeda. ummaduhu waxay isugu faanaan ee ummadda ummad ka dhiga waa atharwa albashariya, waa wax soo saarka bini aadamka. yacni mujtamac kasta ama bulsho kastaaba waxay hanti haysataba marka la ysku daro, bulshada waxay haysataa waa dhul iyo dad iyo waqti. saddexdaas sida loo falgeliyo, yacni dhulkeeda siday uga faa'iidaysato, waqtiga ay haysato siday uga faa'iidaysato, iyo dadkeeda noocay u soo saarto ayaa waxa ka dhasha baa la yidhaahdaa xadaarada la sheegaba. ummaddu jiritaankeeda dhabka ahi waa saddexdan shay uun siday uga faa'iidaysato. saddexdan shay ka ugu sii muhiimsani waa bani aadamka, atharwa albashariya waa bani aadamka, hadduu yahay tiradiisa iyo hadday tahay xagga tayadiisaba. umamku waxay wax ku noqdaan waa tirada bulsheed ay yihiin iyo tayada ay leeyihiin dadkaasi. labadaba hadday tiro tahay iyo hadday tayo tahay, labadaba waxay yidhaahdaan mas-uuliyadda koowaadi waxay ka saaran tahay waa hooyada. sida awgeed baa waxaynu odhan karnaa hooyadu waa halbowle nololeed oo ummad kastaaba hooyadeed siday u eg tahay bay ummaddeeduna u ekaanaysa. waxaynu odhan karnaa islaamku ka diin ahaan maadaama la leeyahay umma almuslima ama hooyada muslimaddaa ka waran, ilaahi subxaanahu wa tacaala kitaabka qur-aana iyo sunnada nebigaba in badan baa hooyada la ammaanay ama xuquuq badan la siiyey ama wax badan loo tiiriyey. sababtuna waxay tahay baynu odhan karnaa haddii shay ahmiyad badan la siiyo waxa ay tilmaamaysaa bulshada qiimaha uu ku leeyahay ama meesha uu ka taagan yahay. mithaal ahaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wawasayna alinsaana biwaalidayh ixsaana xamalathu ummuhu kurha wawadacathu kurha waxamluhu wafisaaluhu 30 shahra. aayaadkan qur-aanka iyo aayaadka kale la mid ah
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. آيات كاسر مرك لاسكو درام أحد المفسرين ابن عطية نكي اللي رنشر مفسرين تكمي دابا وحلي وحا الله الشيغي بويري آيات دان قرآن أفر شيربا هو يد الله الشيغي بويري هلك مرأة بها لغا الشيغي مر إيغو ودا كولانسان با الله شيغو آبيه هو يبا ووصينا الإنسان بوالديه آبيه هو يودا صعدا الله الشيغي بولي haddana hooyadaa 3 gooroo dambe la sheegay buu yidhi markii xamliga uurka la sheegay hooyadaa la sheegay buu yidhi markii wadciga la sheegay xamalatu ummu kurha wa wadacathu kurha wadciga iyo ummusha markii la sheegay inay ilmo dhashana hooyadaa la sheegay buu leeyahay fisaalka oo ah naaska goyntii iyo ridaacadiyana iyana waa mar saddexaad oo la sheegay buu leeyahay yani wuxuu leeyahay aayadda qur-aan haddaan u fiirsanay buu leeyahay mufassirkaasi afar jeer ayaa hooyada la sheegay buu leeyahay halka aabbaha mar laga sheegay taasi waxay tilmaamaysaa buu leeyahay ahmiyada dheeraad ee bulshada dhexdeeda ay hooyanimadu ku leedahay walidaalika buu nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waa ka xadiidkii ku tilmaamayey saxaabigii u yimi xadiidku wuxuu ku yaalaa saxiixaynka saxaabigii u yimi ee nabiga ku yidhi yaa rasuula allahi man axaqu nnaasi bixusni saxaabati ilaahay rasuulkiisiiyo yaa ugu mudnaan badan saaxiibnimadayda amase waxtarkayga iyo wanaagayga xusni suxba yaa ugu fiican aan u sameeya nebigu wuxuu ku yidhi ummak hooyada markaasuu yidhi uma man yaa ku xiga markaasuu nebigu ku celiyey haddana hooyada markaasuu haddana yidhi yaa ku xiga markaasuu nebigu mar saddexaad yidhi hooyada markaasuu yidhi yaa ku xiga mar afraadkii buu yidhi aabbaha mufasirku wuxuu leeyahay xadiidka kan iyo aayaddu way isu dhigmaan oo xadiidkana 3 jeer baa hooyada la sheegay mar afraadkii baa la sheegay buu leeyahay maxay ayaa aabbaha la sheegay makaanada tani waxay ka tarjumaysaa bay markaa leeyihiin qiimaha ay hooyanimadu leedahay sida awgeed makaanadeeda waxaa tilmaamaya maalan bacd alxaadiid haddaan iska akhrino imaam tirmidi xadiisku warinayo ee sheekh alalbanina uu saxiixa ku sheegayo wuxuu leeyahay nabiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi nin baa u yimi wuxuu ku yidhi yaa rasuula allahi innii asabtu danban cadiima ilaahay rasuulkiisiiyow dembi weyn baan galay fahal lii min tawba toobad ma leeyahy nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hal laka min hooye ma leedahay buu ku yidhi qaala laa maya hooyadayna ma noola buu yidhi qaala hal laki min khaala haddaa habaryar ma leedahay buu ku yidhi qaala nacam fabirhaa buu nebigu ku yidhi dembi weyn baan galay buu ninkani leeyahy dabeetana nebigu wuxuu weydiiyey dembi weyn aad geshido war hooye ma leedahay hooyo lama hayo buu yidhi haddaa habaryar ma leedahay hooyadaa walaasheed ma joogtaa haa buu yidhi iyada u samafal buu ku yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh yacni min mukafiraati dunuub inay tahay hooyada iyo xataa habaryarta samafalkeedu inuu min mukafiraati dunuub yahay isagoo ninkani uu ka cabanayo inuu dembi weyn sameeyey waxay tilmaamaysaa hooyanimadu marka hore mansilada uu islaamku siiyey waxaad garan kartaa inuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu u yimi imaam alhaytami fii majmaci xadiidka uu ku soo aroorinaya uu leeyahy abu yacliya tabraani baa awsad ku wariyey rijaalkuna waa saxiix waxa uu nebiga nin baa u yimi wuxuu yidhi yaa rasuula allahi innii la ashtahi ljihaad walaa aqdir calayh jihaad baan raadcaynayaa buu leeyay aad baan u rabaa inaan ilaahay dartii u dagaalamo mana awoodo yacni rubama kaana min asxaabi alacdaar waxaa laga yaabaa inuu ka mid ahaa maxay qof cudurdaar haysto aan jihaatami karin dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh hal baqiya min waalidayka axad labadaadii waalid wax ma ka nool yihin qaala ummi hooyaan nool buu ku yidhi wuxuu nebigu ku yidhi qaabil illaaha fii biriha ilaahay la hortag haddaba samafalkeeda buu ku yidhi haddaad jihaad weyday hooyada samafalkeeda alle hortiisa la tag maalinta qiyaame faidaa facalta dalika faanta xaajun wamuctamirun wamujaahid sida haddaad yeesho waxaad tahay mid jihaatamay oo cimraystay oo xajay baa tahay xadiidka kale macruufka ee mucaawiyat salami isna sheekh alalbani xasanka uu ku tilmaamayo silsiladiisa culamo kalena ay saxiixinayso sida imaam dahabi iyo xaakimba
وكي النبي صلوات الله وسلامه عليه إنه يمي يقول يا رسول الله إني أريد المصير معك. معاوية السلام يباوح لي إلهي رسول كيسية وحا أن دونيا إني أريد المصير معك للجهاد ابتغاء وجه الله. إلهي درتين كل جهاد تبقى راعه أيان رباه. تبتر النبي صلوات الله وسلامه عليه wuxuu ogaa ninkani hooye u baahan in la daws kaga jeesto xagga kale ka soo maro wuxuu ku yiri nabigu markaas wuxuu ku yiri irji ila ummika falzamha war hooyada ku noqo oo iyada laazimo la joog buu ku yiri xagga kale uga soo wareegay haddana cabar markii la fadhiyo ku yiri ilaahay rasuulkiisa waxaan doonayaa inaan ku raaco de kula dagaal galo oo aan soo jihaatama ayaan rabaa nabigu wuxuu ku yiri haddana ilzim ummak war hooyada adigu la joog waa iskaga jeesto mar saddexaad ba haddana dhinaca kale ka soo maray nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan doonayaa inaan ku raaco oo kula jihaad galo anigoo ilaahay dartii iyo maalinta qiyaamo u raadinayo aan dan kala lahayn nabigu wuxuu ku yidhi ilzim ummak war hooyadaa laazim buu ku yidhi mar saddexaadkiiba wuxuu ku yidhi wayxak ilzim ummak ilzim rijlaha fatama aljanna war لازم بكوير النبي صلوات الله وسلامه عليه هو يدا أدين كذا لازم أما هو يدا لا تشوق النبي كويري هل قاس بيتشندي ترتاي فثم الجنة فهناك الجنة وحنا تراد عين سو جنة ما أبو النبي كويري جنة دي حاجة سيشوك تايوتك وحقوق فلان إنه النبي صلوات الله وسلامه عليه حديث عائشة ورينا حاكم يذهب بيت الصحيحين يعني معروف كا وحديث النعمان الحارث بن نعمان إنه حديث دير بها وحكم ده هيدو النبي صلوات الله وسلامه عليه إنه نكن قراءة دي سي قرآن أخرس بدنا كم مغلي جنة دبتنا ويجي النبي كذلكم البر الحارث بن نعمان وحليرانين هو يدي آدو قسم فلي شريبوها دبتنا النبي حلي سمفلكم هل كاسودتك جاية سمفلكم هل كاسودتك جاية maxaana xadiistan hooyanimada ka waramaysa oo tilmaamaya waxaan u tilmaamayaa marka hore inaan sheego hooyanimadu mujtamaca islaamiga qiimaha ay ku leedahay manzilada hooyanimadu iyo in hooyo ay haweenay noqotaa inuu yahay shayga ugu qiimaha badan leh nolosha tanbeen tilmaami karna waxa ay tilmaamaysaa inay markaa gabadha muslimadii leedahay risaalo saamiya ama risaalo loo baahan yahay inay haween kasta oo muslimada ay qaado oo koraysa hooyadu markaa waxaan leenahay waa cidda dhasha jiilka soo socda waa cidda soo saarta ee jiilkaasi ka ilaalisa asbaab alinxiraaf ama almanaaca cidda siisa waa cidda u yeesha inuu ka celin karo qofka kan inxiraafaadka iyo sharka iyo balada dhammaanteed sida awgeed ee carabtu waxay ku mahmahaan waxay yidhaahdaan nin kastoo cadiima haddaad aragto gabadh cadiima ka dambaysa bay yidhahdaan yacni waa guri uun hooyo cadiimi ay joogto ayay ku tilmaamayaan waxaan leenahay hooyanimadu marka waa shay weyn waxaanay u weynaatay inay iyadu tahay waxaa soo saaraya jiilasha macruufka ee la yaqaano naxad ilkafara maraykanka nimankiisii caanka ahaa nin ka mid ah oo dankol la odhan jiray ayay tahniyadeeyeen dabeetana wuxuu ku yidhi laa tuhani'uunii waxba aniga yaan lay tahniyadaynin inamaa hani'uunii ummii buu ku yidhi waar hooyaday hala tahniyadeeya buu leeyahy waayo makaankan sare iyada ay keentay haddaad taariikhda islaamiga dib ugu noqoto ragga waaweynee taariikhda islaamiga macruufka ku wada ah waa rag in badan ay hooyo soo saartay hooyo weyn baa ka dambaysay a'imada muslimiinta caanka ku ahayd sufyaan thawri isagoo yar bay hooyadii u yadha waxaa ku tiri dhegayso hooyo tolmada iyo ghasligaa dhaqaanaa wax la cuno anaa kaaga filan oo farsamadaydaa ku filan laakiin waxaan kaa rabaabay tidhi inaad maxay culamada waaweyn inaad majaalistooda kula loolantid weliba bay tidhi haddaad 10 xadiid qorto oo uu raad kugu yeelan waayaan يعني waxay tilmaamaysaa xataa waxaan uu qoraya ama uu baranaya inay noloshiisa raadeeyaan Sufyaan Thawri oo ninka garanaysaana Sufyaan quramaan soo qabanay hadii aan tilmaamaba ragga waaweyn macruufka la yaqaan dhamaantood waxaan oran karnaa
waa raggay ka dambaysay hooyadaa weyne oo a'immadii muslimiinta ee caanka ee aad taqaaniin bukhaari agoon yaroo hooyo korsatay buu ahaa imaamu shaafici agoon yaroo hooyo korsatay buu ahaa imaam ilawsaaciyi agoon yaroo hooyo korsatay buu ahaa imaam yani haddaa soo tiriyo a'immada inta uun islaanay ay soo gacan qabatay laakiin waxay ahaayeen hooyo ku talagalay inay nooc gaara soo saaraan jiil gaara inay rabeeyaan oo dad gaara ay soo saaraan sida awgeed waa shaqo muhima waa shaqo ka tegisteedu dhib badan ay leedahay qabashadeeduna ay tahay wax weyn nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh xadiis sheekh alalbani oo xasan ku tilmaamaya yacla warinayo wuxuu leeyahay ana awalu man yadkhul iljanna jannada ka u horeeya galaa noqonayaa buu nebigu yidhi dabeetana faara imra'atan tubaadirunii buu nebigu leeyahy waxaan arkayaa un gabadh idhinac ordaysa oo meesha jannagalka ila boobaysa anaa jannada u horgelaya buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaanan arkayaa gabadh jannada gelisteeda igula loolamayso iyo ordaysa dabeetana waxaan odhanayaa buu nebigu yidhi wayxak mananti na hogta tumaad ahayd yacni wayxak waa kelimo luga alcarabiya la isaga isticmaalo lilintibaah naa tumaad ahayd baan ku odhanayaa buu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh anigoo jannadii ugu horgelaya tan iga hadhile ee jannada ila boobaysa ayaan weydiinayaa buu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh naa tumaad ahayd baan ku yidhi soomaalida malaa badh baa naada xuma u taqaana laakiin lahjadayda xuma maaha waa su-aaluu weydiinaya nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa ay ku jawaabtay gabadhii ana imra'a anigu waxaan ahay haweeney caruur agoona haysatay oo ag fadhiisatay agoonteedii yani waxay leedahay anigu waxaan ahay haweeney agoon haysato shaqadii agoonta inay korisoo rabaysoo dad ka dhigta ka adkaatay xirfadaasaan jannada ku galay bay leedahay yani xirfaddaa inaan caruur soo saaray oo kobciyey oo tarbiyeeyo waxay u baahnaayeen oo dhan aan sameeyey haadihi alxirfa ayaa ay sheeganaysaa inay tahay sababta ay jannada ku timid idan taasi waxay sheegaysaa hooyanimadu iyo jiilka rabayntiisa ama hooyanimada iyo mansilada ay leedahay iyo caruurtan koristeedu sida ay tahay hooyada haddii la waayo oo ah aragtiyo maanta dunida aada loogaga dhawaaqayo waxa ku filan inaanan in badan war kala sheegina bal iyaga warkooda aan soo gudbiyo wixii laga dhaxlay yacni haweentan shaqo tagtay ee ninka la baratantay ee xoogsatay ee gurigii ka tagtay maxay mujtamaca ku soo kordhisay haweentii laakiin guriga joogtay ee ilmo korisay ee kobcisay maxay soo kordhisay iyagoo iyagu ka warramaya maalan nin Patrick Buchanan la yidhaahdo oo wada taqaaniin baa laga yaabaa waa nin suxufiya oo kristana oo waliba conservative ah oo maraykana oo 3 jeer isu soo sharaxay madaxtooyada Maraykan 3 madaxweynena advisor u ahaan jiray TV-yadana caanka programmada ugu caansan lahaan jiray yani ABC mise NBC-ga iyo CNN-kan programkii la odhan jiray Crossfire waa ninkii bilaabay Patrick Buchanan wuxuu qoray dhowaan book bestsellers bookska ka mid ah waqtigiisii 2000kii buu qoraan rajaynaya bestsellers bookska ka mid ah bookgiisa waxaa la yidhahdaa The Death of the West geerida reer galbeed baa la yidhaahdaa buugga kan daba ilaa dacal markaan soo duuduubo waxa uu kaga hadlayaa hooyada la waayey waxay dhaxal siisay ninka cad ama bashariyadan white manka loo yaqaanee cadi meesha ay ku socoto markii la waayey hooyo wax rabaysa saa daraaddeed buu maalan ixsaa'iyaadkiisa yar haddaan idin tilmaamo wuxuu leeyahay 1960kii buu yidhi white manka dunida ku noolay wuxuu ahaa buu leeyahay 750 milyan waa 1960kii
dunida populationka joogana wuxuu ahaa buu leeyahay 3 bilyan 750 baa white manku ahaa buu leeyahay while dunida oo dhan dadka jooga 3 bilyan ay haayeen buu leeyahay taa macnaheedu waxa weeyaan afartii qof ee dunida kor socdaba mid baa cadaan ahaa haddoo 2000 ay tahay buu leeyahay world population wuu labanlaabmay buu yidhi 6 bilyan buu marayay laakiin white manku halkii ma dhaafin buu leeyahay 1960gii halkuu joogay 750 milyan uu joogay ayuunbuu weli joogaa buuggiisa haddaan yar ka tilmaamo chapterska qaar ka mida maalan chapterkiisa koowaad wuxuu u bixiyey endangered species xayawaanada dabar go-aya waa white manka xayawaankan dabar go-aya uu sheegayo chapterka labaad wuxuu u bixiyey where have all the children gone dhammaantii buuggu waa baroordiiq horta ama calaacad uu tolkii wax tusayo iyo meesha ay ku dambeeyeen waxa uu tilmaamayaa uu leeyahay yurub buu yidhi 47 dal ee yurub ku yaala ee yurubiyanka ah wax zero population dhaafsiisan zero yani wax labadii qof ee kasta ee isguursaday labadii bedeli lahaa inay dhalaan yani si intiisaas inuu iska ahaado waxa gaadhay oo qura buu leeyahay 47 wadan ee yurub ku yaala hal wadan baa suurtagal buu leeyahay sidaynu iminka u dhaqanno haddaynu u dhaqanno inaan sii noolaano maclasif buu leeyahay kaasina muslim buu noqday albania mooyaane buu leeyahay yurub inteeda kale oo dhami waa dad hoos u sii socda si kale haddaanu tilmaamo buu leeyahay 2050 taariikhdu markay tahay buu yidhi waxaa dhici doona buu yidhi white manku inuu 100 milyan hoos u dhici doono yani halkuu ka ahaa 750 inuu noqon doono maxay 650 iyadoo duniduna ay 9 bilyan sii maraysa buu leeyahay halkay basharkii kale kasii tira bateen 9 bilyan ka marayaan ayuu caynkan noqon doonaa 50% of this people dunida kusoo kordhi doona wuxuu noqon doonaa buu yidhi Asia iyo Latin America iyo Africa taa macnaheedu waxa weeyaan buu leeyahay 10 qof ee dunida ku noolba inuu hal noqon doono white manku halkan 60gii ka ahayn buu leeyahay afartii qof ee kasta ee dunida jooga hal aan ka ahayn uu sii wado wuxuu tilmaamayaa siday u sii baaba'ayaan yurub buu yidhi waxaan oo kale weligeed kama dhicin buu yidhi taariikhdeeda the black plug waqti la odhan jiray mooyaane waa waqti taacuna yurub ay ku dhaceen waxaan filayaa 14th century-gii 1347 meelahaasi 1352 intii u dhaxaysaan filaya oo ay yidhaahdaan daacunaan ka dhashay yurubta galbeed dabeetana si xun bay u madheen baa la yidhaahdaa yurub dadkii deganaa bay yidhahdaan 1/3 ayaa dhintay 3 meelood marka loo qaybiyo meel baa dhimatay wuxuu leeyahay waqtigaa wixii ku dhacay mooyaane marnaba taariikhda yurub may soo marin buu leeyahay laakiin kii waqtigaa dhacayna kanbaa ka daran buu yidhi sababtu waxay tahay buu leeyahay waqtigaa ka yar iyo ka weyniba way dhimanayeen ee iminka waa dad sii gaboobaya buu yidhi oo xagga hoose kasoo yaraanaysa yacni waxbaan la soo dhalaynin kii weynaana xaggii agku u sii socdaa sidaa daraaddeed xataa kaas buu leeyahay kan hadda jooga ayaa ka fool xun uu soo waday aragtidiisa wuxuu leeyahay average fertility-ga yurub buu leeyahay waa 1.4 labadii qofe kastee isguursadaa labadii bedeli lahaa ma dhalayaan that means labadii boqole qof waxay soo kordhinayaan labadii boqole qoys waxay soo kordhinayaan 140 qoys 140 qof bay soo kordhinayaan macnaheedu waxa weeyaan labadii boqole qof labadii boqole bedeli lahaa xataa ma dhalayaan si uu dadku halkiisa u taagnaado aanu 60 milyan si aanu weligiiba ingiriis u dhaafin waxa loo baahan yahay labada boqolba inay 200 u dhalaan bes aan laba korin xataa taasi suurtagal maaha buu leeyahay waxay ku socotaa inay noqoto maxay labada boqol inay dhalaan 140 inay dhalaan waa zero population buu leeyahay zero growth kama warramaya buu leeyahay isagoo warkiisa sii wada buu wuxuu yidhi dhibtan muuqata buu leeyahay ma la joojin karaa su'aala buu maxay u dhacaysaa buu isweydiiyey su'aal ah su'aalihii jawaabtuu bixinaya waxaa ka mida buu leeyahay gabadha la shaqo geeya ka mida buu yidhi reason isku tirinaya uu leeyahay waa loo kobci waayey oo waxa loo waayay jiilkii cusbaa waxaa ka mida reasoniska uu sheegayo tumashada ka mida waxaa kaloo ka mida bulshadan dumarka la shaqo geeyay ee gurigii diiday qadaayadkiisu sii wadaa wuxuu leeyahay sinaba dunida kale buu yidhi
15 biloode kastaba 100 milyan oo qof bay dhalaysaa 15 biloode kastaba hal wadan oo Mexico leegba dunida saddexaad dunida kusoo kordhinaysaa buu leeyahay halka white man oo dhan buu leeyahay meelu joogaba marka la isku daro from Australia ilaa iyo Vancouver inta ka dhaxlay ninka white man jooga marka la isku daro isaguna uu sii yaraanayo dadka kalena waxay soo kordhinayaan buu leeyahay Mexico country 250 marka la gaadho buu leeyahay waxa soo kordhaya 40 wadano Mexico leeg ba soo koraya su'aal buu isweydiiyay طريقة si looga bixi karaa ma jirta wuxuu yiri laba si baa lagaga bixi karaa divine intervention dhaca mucjiso xagga alla ka dhacdo uu de Ilaahay wax bedelo kuwana ama laaya ama kuwan si uu galo xagga alla wax ka yimaadaan waa dhici kartaa buu leeyahay taa waxaan ahaynay wax ku dhici karaan buu leeyahay waa haweenada reer galbeed aynu ku qarcino na ayayda si ay u dhali jirtay adna isaga dhab يعني هدي تان لهين بولي وحا بديله كله aan samayn karna buulay waa inaan nidhaana haweenada reer galbeed sidii ayayda u dhali jirtay u dhal aragtidiisa intuu wado ayuu wuxuu ku gabagabaynayaa uu leeyahay hadii la rabo buu yiri mesela Europe inay sii jirto markaan iska soo koobo warkiisa hadii la rabo Europe inay sii jirto saddex midun bay ku jiri kartaa buu yiri waxay ku jiri kartaa inay 129 milyan oo qaxoontiye qaadato si ay heer dhaqaalaadka ay hadda joogto ay u joogi karto 129 milyan oo qaxoontiye inay qaadato iyagoo yiri dawladaha Yurub inay cashuurtana kordhiyaan benefits kan caruurta iyo caafimaadka iyo waxa lagu bixiyo iyo education iyo all this benefits na hoos loo dhigo taa macnaheedu ay tahay inay noqdaan buu yiri Europe oo dhamay wadan kamida continent kamida dunida saddexaad inay markaa isu bedeshay طريقة صدحات قرية أي كوب شري كرتا يوروب وحويان بوري إنه هو يدا يوروب وشيغنو كوكان عنا إن أييدد لمد نقطة يعني نكان محوكا والرمية وحوكا والرمية وحنا دنيري هو يدا والصناعة بجيل صوصة عطا صوصارتا تربية وقرما وابا عدة صوصارتا با إذا وحوكا والرمية ولي هدي للربا يوروب بين يسيشر توين لقوكان عيا هو يدا ثاني إني محي sidii ayaydeed u dhali jirtay inay u dhasho Alfred nin la yiraahdo Francis oo qoraayaba wuxuu yiri Europe say ku socota buu yiri waxay la mid waa a continent of old people in old houses with old ideas buu yiri sidan haday u jiri doontaan noocan hadaa noqon doontaan wuxuu bayna ahaan doonaa buu yiri wadan ama continent dad gabgaboobay degayin oo guriyo gabgabow degan oo aqli gaboobana sida buu intaas uma noqonaysaa buu leeyahay hadii wax laga bedeli waayo marka ayuu ku noqday oo wuxuu leeyahay war Yurub waa aragnaa inay dhimanayso ama ninkii cadaa inuu maranayo waa aragnaaye can we stop death ka ma joojin karnaa buu leeyahay sinaba geerida ma u joojin karnaa wuu soo noqday haddana wuxuu buu leeyahay waxaan joojin karnaa haddii aan ku qancino buu yiri hooyada Yurubiyanka ahi wanaagu inuu yahay in ilmo la dhalo oo la kobciyo oo bulshada lagu daro yani haddaan ku qancino buu leeyahay hooyada cad wanaagu inuu yahay wanaagu waxa loo yaqaanaa inuu yahay in ilmo la dhalo oo la kobciyo oo dabeetana bulshada lagu daro haddaan taa ku qancino buu leeyahay geeridan waa joojin karnaa haddii taa aynu ku qancin kari weyna buu leeyahay gabadhaasi waa inaynu aqbalnaa last chapterkii ugu dambeeyay taariikhda ninka cad inaynu qorayno oo waliba on our will inaynu ku qorayno oo aynu wada saxeexnaa buu leeyahay geerida chapterkii taariikhda ugu dambeeyay white man uu leeyahayba ayaynu hadda wadnaa buu leeyahay qoraalkiisii marka aan on our will aan ku wada saxeexna buu leeyahay in meesha tan aynu ka wada baxno oo wada dhimano ninkan weedhiisa waxaan u soo guuriyo kaliya waxa weeyaan inaan idin tusiyo hooyadu iyo gurigu
inuu yahay akhtar mu'asasa fi lmujtamac ama mujtamac oo dhan marka la isku daro mu'asasada ugu khatarsan ee uu leeyahay mujtamacuba inuu yahay oo hadday mu'asasadaasi dunto oo ilmihii la rabay inay dhasho dhali weydo oo kobcintii la rabay inay kobciso ay kobcin weydo waa ummad halaagsamaysa saa daraaddeed ma odhan karaba dowrkay hooyada muslimka ku leeday tarbiyada jiilka soo socda waxaan odhanayaa dowrkay hooyada muslimka ku leeday sinaacati lajyaal samaynta la samaynayo jiilasha cusub ee soo socda haddii hooyadu markaasi wanaagga ay u arki kari weydo ay ku qanci weydo in wax la dhalo oo la kobciyo oo la barbaariyo inay tahay nolosha ugu fiican waa dabagediskii oo waxa weeyaan waa uma tirtirmaysaa mashkiladda ugu badan ee caalamka maanta ka jirtana waxaa weeyaan su-aalaha dadka dabagediska loogu dhigay yani su-aalaha dabagediska loo dhigay waxaa ka mid a waxa lagu odhanayaa almar'a alcaatila aw ilimra'a alcaatila walimra'a alcaamila baa lagu leeyahy haweenka shaqeeya iyo haweenka bilaa shaqada ah marka lagu leeyahay haweenka shaqeeya bal eragan u fiirso haweenka shaqeeya iyo haweenka caatilaadka ee bilaa shaqada ah baa lagu leeyahay haweenka caatilaadkii fii mafhuumihim waa kuwee waa tii ilmaha dhalaysay ee kobcinaysay ee barbaarinaysay waxaa laga rabaa in laga saaro maxay safka shaqada oo laga dhigo iyadu inay tahay qof caatil oo bilaa shaqo ah ta shaqaysaa waa tee markaa waa tan suuqa ordaysa ee geerashka joogta ee gaadhiga samaynaysa ee caynka samaynaysa su-aal basiid aan isweydiino in qof bini aadama la dhalo oo la kobciyo la barbaariyo oo laga shaqeeyo mujtamaca lagu soo daro iyo in gaadhi la sameeyo ama combyuter la sameeyo ama dayuurad la sameeyo iyomaa qiimo badan yani technologygaynu sheegayna waxa ugu weyne inoo sameeyaa soo intaa maaha waxa ugu weyne technologygu uu sameeyaa waa gabadha eriyo inaad injineerad ka soo dhigto soo maaha ama professorad ka soo dhigto maxay qaban gaadhay samayn dayuurad bay samayn tareen bay samayn intii ninku samaynayay samayn ficlan way samayn kartaa laakiin markay samayso maxay nolosha kusoo kordhisay inay ilmo kusoo kordhiso nolosha ilmo hagaagsan oo caqli qaba oo xanaankii hooyo helay oo waalid soo koriyey oo kobcay oo barbaaray oo dareemadii qofka bini aadamkii uu baahnaay oo dhan soo helay oo bulshada ka mid a inay keento iyo inay gaadhi keento iyomaa qiimo badan bulshada kee u fiican waxaa la rabaa feminist group iyo kooxaha la noocee ka biyo cabay in lagaaga dhigo haweenayda ilmo dhashay ee soo korisay ee kobcisay soo saartay inay caatilatay lagu yidhaahdo haweenka aan shaqayna guri joogta ah dabeetana wuxuu ku leeyahay nisful mujtamac baan shaqo qaban baa lagu leeyahay goormaynu horumaraynaa haye maxaa lagu horumaraya mujtamacii badh baan shaqayn bay ku leeyihin bal gabadhan madbakuun taaganday wuxuu ka dhigay noloshu inay madbaktay waayo waxaa la rabaa suurada ugu liidata in la sawiro while maalan daraaso ay sameeyeen adelman waa alkhadamaat almaaliya qolyo qabta oo virginia ku yaala daraasa ay samayso reuters ay soo qaadatay ayaa waxay leeyihiin haddii la qiimeeyo buu yidhi aynu waraq ku qorro qiimayso oo lacag ahaan ku qiimayna buu yidhi qiimaha ay qabato hooyada dhabta ahi oo ah buu yidhi aynu xisaabino shaqooyinka ay qabatee tirada badan leh ay ka mid tahay buu yidhi tarbiyadu ay ka mid tahay kuukinka iyo raashin karintu ay ka mid tahay guriga iyo maamulkiisa iyo xoolihiisa ilaalintiisa ay ka mid tahay buu yidhi alcilaaji nafsi lilusra reerka dhan inay iyadu psychiatrist u tahay oo ay daweyso intuu soo tiriyey buu yidhi haddaan xisaabiye buu yidhi shaqada hooyadu qabato wuu tirinaya wuxuu leeyahay waa shaqo ka kooban buu yidhi 7 wadiifo oo kala jaaday guriga ka qabataa hooyada guriga joogta ee hooyada rasmiga ahi buu leeyahay marka lagu xisaabiye buu leeyahay aqoonta maanta bini aadamku uu ku shaqaysto waa jariidada economics qoraysa aqoonta bini aadamka marka lagu xisaabiye buu yidhi 7 shaqay hooyadaasi qabataa guriga joogta ay ka mid tahay markaasi tarbiyeynta cookinka idaarada guriga ay idaareynayso caruurtan iyo reerkan dhan ay caamilka nafsiga u tahay iyadu daweynayso dhalitan ay waxaasoo dhan markaa isku dara buu yidhi 17 shaqo oo weliba ah buu yidhi shaqooyin ay qabato whole 24 hours whole 7 day hadday ugu yaraato buu yidhi waxaan naqaanaa buu yidhi hooyada guriga joogta inay shaqayso 19 saacadood buu yidhi shaqadaa haddaan xisaabiye buu yidhi waa niman dhaqaalayahanaa waxaan ku xisaabin karnaa buu leeyahay
wuxuu leeyahay 508,000 oo dollar bay u dhigantaa buu leeyahay shaqaday qabato hooyadaasi economically haddaan u xisaabina buu leeyahay hooyadaa guriga joogtay ee familiga ka shaqaysay ee intaasoo wadiifo oo kala nooca qabatay ee 19 saacadood shaqaynaysay haddii lacag ahaan loogu xisaabiyo buu leeyahay oo ay tahay waxaanaynu qiimeynaynaa shaygu inta value uu lacag ka leeyahay waxay u dhigantaa buu leeyahay 580,000 oo dollar yaa sanadkii shaqeeya dadkan loo eriyo 580,000 oo dollar kuma sanadkii shaqeeya injineer kasta soo qaba oo injineerada meelaha jooga kuwa dawladda sameeyo soo qaba kuma 580,000 oo daale bereman bereyer soo shaqeeya salarigiisu intay yani aqliyada qaldani waxay tahay dabarroga ah in laga dhigo hooyada guriga joogtaana inay caatilatay ma shaqaystay inay tahay ama midaan waxba qaban inay tahay tasuuqa u soo baxdayna inay tahay mid shaqaynaysa fikraddaasa marka horeba qaldan sidaa awgeed waxay yidhahdaan hooyada guriga joogta shaqaday qabato waxay yidhaahdaan markay hooya guriga joogto bay yidhahdaan takaaliifta guriga ugu yaraan 30% bay safe garaysaa bay yidhahdaan xataa maaliyan haddii loo xisaabtamo bay leeyihin waxay yani bayaanaad runtii tiro badan baan haya oo ay tilmaamayaan hooyada iyo shaqada ay qabataa intay leegtahay haddii material loo xisaabiyo laakiin materialkan ba waxaa ka qiimo badan inay bashar soo saarto idan hooyadu shaqada ugu weyn ay qabataa marka koowaad waxa weeyaan inay bini aadam soo saarto waa marka labaad inay bini aadamkaasi tarbiyeyso oo kobciso oo ay ku abuurto xanaan iyo waalidnimo oo ah mu'asasa haddii iyada la waayo aan leenahay noloshoo dhan baa la waayay al-umma sinaaciya waxba ma tarto nersarigan la sheegaya nersarigu bay yidhaahdaan waa 20 qof oo hal hooyo loo yeelay bay yidhahdeen isagoo ilmuhu bay yidhaahdaan ana naagta la yidhaahdo atfaalun bilaa usar buugga la yidhahdo qortaa waxay leedahay ilmuhu bay leedahay baxdiga markii la sameeyey 2 sane ugu horreysay hooyada in lala wadaagaba uma baahna hooyo keligii buu rabaa keligii u soo jeeda keligii naas nuujisa keligii kobcisa keligii haysa oo aan lala wadaagin ilmaha inta halkan la geeyay 20kiiba hal hooyo oo waliba tii dhashay aan ahayn ta dhashay sida ilmaha uga fakarto ugama fakarto gabadh kastoo shaqaale ah qofka shaqaalaha waa shaqaale laakiin qofka dhalay isaga dhalay sadaradeed hooyadu inay shaqo tagto oo lacag soo shaqayso iyo inay guriga ka shaqayso dhaqaale ahaan iyo caqli ahaan iyo maskax ahaan iyo ummad ahaan iyo si walba waxay ku wax soo saar badantay inay guriga ka shaqayso ay ku wax soo saar badantay mar kastabana wax soo saarkeeda guriga wuxuu ka badan yahay salariga ay dibadda ka soo qaadato salariga ay dibadda ka soo qaadataa wuxuu ka go'an yahay guriga kaliya siduu u kobci lahaa iyo siduu u barbaari lahaa idan maanta galbeedku waxay ka cabanayaan waxay u tilmaameen child delinquency junuux al-atfaal caruur la leeyahay dhaqaale uma baahna waxba uma baahna haddana waa teenagers rabshoolayaala oo filimka wixii aan ku arkeen iyo waxa suuqa ku filinaya maraykan waa kan juvenileska ay prisonska iska dhan leeyihiin xabsiya iska tiro badan leh maxaa waxaan sababay bay leeyihiin oo ka mid ah waa ilmo waaye bay leeyihiin xanaankii hooyo waa ilmo waaye bay leeyihiin al-iithaar inka kale walaalkiisa kale uu iska horumariyo uu jeclaado waa ilmo waayey wixii la rabay guriga inuu ku soo barto guriga ilmuhu waxa uu hooyada ka helaa maaha cunno qura waa noloshoo dhan buu ka helaa kalgacalka hooyanimuu ka helaa waa walaalnimaday bartaa mujtamacan uu la nooliyo lagu dhex kobcinayo ee walaalahan kooxda lagu dhex kobcinayo ee uu iithaarka u samaynayo walaalnimo u samaynayo walaalnimo dhabi ay jirto baranayaan idan gurigu waa madraso qofka lagu baro waa iskuul qofku kalgacalka iyo iithaarka iyo cadaaladda iyo walaalnimada iyo sinaanta iyo mas-uuliyadda iyo takaafulka iyo tadxiyaha waxa aan sheegayno oo dhami waa iskuulka koowaad ee lagu bartaa waa guriga waa usrada cidda koowaad ee mas-uulka ka ahayna waa hooyada intan oo dhan cidda u soo gudbisa haddii hooyadaa la waayo markaasi waxa ka dhashaa wuxuu yahay hooyadu xataa ha aqoon badnaato mar haddaanay shaqo tagtay jaanis badan u heli mayso carruurtan mar hadday shaqo tagtay jaanis badan u heli mayso xataa even iyadoo aqoon leh oo intelligenta oo mutadayinada oo wax badana
ayaa waxaanay helaynin jaaniskii uu u baahnaa ilmaha kani in la siiyo ama iyadoo daalan oo iyaba naftii haysato maanta oo dhan dabadda ordaysay oo shaqaynaysay ayuunba iyada iyo ilmo guriga isugu imanayaan iyadaan wax badan qaban karin iyada lafteedu oo bashar meeshii loogu talagalay meelaan ahayn kasoo xoojiyaya saa daraaddeed ilmaha kani waxaa jabka koowaad ee caruureed uu galbeedka uga jiraa waxa weeyaan waxa la waayey hooyadii guri kasta u gaarka ahayd ee dadkan soo saaraysay waxaan leenahay markaa hooyanimadu waa shaqo weyn oo ay ugu horeyso in bashar la dhalo rag hadduu isu tago midh ma dhalade dee isu wada tago mujtamaca waxba kuma soo kordhin karo hooyanimadu baynu leenahay waa shaqo bashariyadu waa unug ay soo kala dhaxashay ilaa bilowgeedii casriga ay hooyanimada la waayena waa casrigan aynu joogno casrigaynu joogno markii la waayena aafaadkeedii waa la wada helay yacni bini aadamku wax kasta wuu tajribeeyey tajribadan resultkeedii baa la hayaa marduudka wixii ka soo noqday uma baahna maanta falsification dambe iyo sharax kale tajribadii laba gel marduudkii wixii ka soo noqday natiijo ahana waa macruuf idan waxaan leenahay hooyadu waa waxa ugu adag ee bulshadu ay leedahay iyadaana ah rukunka dhabta ah ee mujtamaca asaaska u ah hooyadu markaa waxay leedahay khasaa'is nafsiya oo aanu aabbuhu lahayn oo ilmuhu uu u baahan yahay waxay leedahay caatifo ka badanta aabbaha caatifo fayaada yani hooyadu in yar bay isku bedbedeli kartaa waxay leedahay sabir ka badan markay carruurta tahay sabirka odayga adiga haddii 6 carruura lagaaga tago oo saacad qura lagu yidhaahdo sii hay 3 jeer markaad midba mar tidhaahdo war aamo adigu rag u adkaysa badantay markaas aad oohin bilaabaysa yani may marun soo noqoto aad leedahay melihid sabirka ama taxamulka inaad u adkaysan karto laakiin hooyadan ilaahay ba subxaanahu wa tacaala sabir ka siiyey iyadoo dhex fadhido mid ku kaajayo mid matagayo mid raashido ayay intaba kala hagaysaa dhibna weliba aanay ku qabin aanay iyadu nervous ahayn adiga waxa laga yaabaa xataa haddaad wax qabatay adigoo madaxu ku xanuunaad wax qabatay adoo daalay oo morally u daalay oo maskaxaan u daalo si walba u daalo naftu ku haysato laakiin iyadu intaba waxay qabanaysaa iyadoo murtaaxa oo dareensan carruurteeda inay wax u qabanayso iyadoo aan midnaba dareemin kan 5 jeer ku matagay iyadoo aan matagiisa dareemin kan kaajaya iyadoo aan kaadiisa dareemin bal ay weli xanaan u haysaa cawaatifta hooyadu waxay isbedeshaa in yar iminku wax samaynaya way cadhoonaysaa daqiiqad kadib bay la boodaysaa haddana iyadoo ooyeyso iyaday qaadaysaa aabbahaase lagama yaabo adiga wax laga yaaba ilmuhu hadduu gafo aad dishaba markuu ooyo inaad weliba xagga afka u buurto aadna ood kaga dhaqaaqdo tiraa bal waxaa xun akhlaaq xumadiisa day aada eegin laakiin iyada hadday disho hadduu ooyo haddana iyadaa la boodaysaa at the same moment waxay leeyihin cawaatifteedu waxay isku bedeli kartaa instantaneous inaanu awoodin ninku inuu systematically uu isu bedeli karo ayadu isu bedelaysaa waayo waa bashar ilaahay ugu talagalay inay bashar koriso ilaahay baa wuxuu waxaan u siiyey yacni qofka bini aadamka ah adigoo caloosha hooyada ku jira baa indha lagu sameeya waayo waxaa la ogyahay meel aad uga baahan tahay hadhow inaad wax aragtay inaad tegi doonto markaad uurka hooyo ku jirto waxba arki maysid laakiin waxaa lagugu sii talagalay markaad dhalato kadib inaad u baahan tahay ilaa aad isticmaasho ilaahay subxaana wa tacaala cawaatiftan hooye kasta wuu siiyey waayo waxaa loogu talagalay inay maxay ku isticmaasho ilmaheeda sida awgeed ayaa hooyadu caatifada alla siiyey subxaana wa tacaala waxay awoodaa inay ilmaha barto naxariis waa xanaanka meesha laga helo walidaalika uu nebigu markuu naxariis tilmaamayey ilaahay naxariistiisa markuu tilmaamayey hooyuu mithaal ugu qabtay yacni iyadoo dagaal dhacay oo hooya ilmaheedii weyday oo ay daydayayso oo meel kolba ordayso ayay markii dambe ilma ay dhashay ku soo baxday dabeetana intay la booday bay laabta ku dhajisay markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi ma u malaynaysaan taasi inay ilmaheeda dabka ku ridi lahayd may bay ku yidhahdeen saxaabadu yacni hooyo ilmaheedii weyday oo markan heshay inay dab iskaga riddo dee lagama filayo ee laabtay ku haysaa may bay ku yidhaahdeen wuxuu nebigu ku yidhi ilaahay makhluuqaadkiisa uga naxariis badan taasi ilmaheeda say ugu naxariisanayso yacni nebigu markuu damcay inuu tilmaamo naxariis bandida alle subxaana wa tacaala wuxuu mithaal ku bixiyey haweenaydu siday ilmaheeda u jeceshahay idan xubbiga iyo xanaanka iyo kalgacalka ay bartay ilmaha ku abuurto ee ku canqarisaa cid kula canqarin kartaa ma jirto
wala alummi sinaaciya xataa hooyadan sinaaciga ee nersariga halka joogta xataa taasi xanaankaa ma leh kan xanaankani waa ka dhab hooyanimo waa ka dhab idan hooyadu waa cidda barta ilmaha naxariista badan leh waxay leeyihiin ilmahan qalbi engega qabe qarniga 20aad joogee mentaalitigiisu yahay inuu xadgudbo oo wax dilo oo qallafsanaado waa ilmo waaye bay leeyihiin xanaankii hooyanimo kalgacalkii hooyanimo oo cabbi lahaa buu waayey therefore wuxuu ku soo koray nursery iyo meel u dhiganta waxa la tilmaamaya hooyada dabeecadeeda waxa ka mid ah istiqraar deganaanshiyo ay degan tahay gurigeeda ay nacab tahay xataa dabadu bax nolosheeday ka mid tahay waa il ninku laga yaabo inaanu u adkaysanin waxba xataa istaanu qabanayn inuu guriga fadhiyo hooyadu laakiin min tabicaha istiqraarku buu ka mid yahay ilaahayna uu ku tilmaamaya waqarna fi buyutikunna idan taasi waxay keenaysaa inay waqti badan u heli karto hooyadu inay kobciso ilmaha kana u sabirto hooyadu waxaynu leenahay way uga dhowday dadka guriga jooga cid walba walidalik bay waxay culamaa nafsi yidhaahdaan cilaajka nafsiga ee ugu tirada badan leh usradu ay hesho hooyadaa bixisa hadduu odayga yahay iyadaa dawaysa odaygu isagoo xayraan oo nafta haysato buu guriga soo galaa iyadaa xasiliso oo itminaanka siisa ilaahayba markuu qur-aanka tilmaamayay guurka wuxuu ku tilmaamay sakan inuu idin yihi meel lagu xasilaa ilaahay ku tilmaamay idan qofku si kasta uu nervous iyo markuu gurigiisa iyo islaantiisa iska tago ee raashinka la siiyo wax walba la siiyo siisuu isaga xasilaya waxay yidhaahdaan gurigu waa meesha ugu badan bay yidhaahdaan qofku psychologically uu u dego nafsiyan uu xasili karo waa hooyada bay yidhaahdaan cidda laga helo odaygana ku dar iyo caruurta iyo waxoo dhan cidda ay xasiloonida tan ka helaanee lagu degaa ee guriga joogta waa hooyada baa lagu tilmaamaa idan hooyadu waxaynu leenahay waa mujtamacu meesha uu ka soo unkamaba sidaa awgeed bay waxay yidhaahdaan إذا علمت رجلا فقد علمت فردا بينها وإذا علمت امرأة فقد علمت جيلا هذا هداد نين وحبرته هل قف بعد وحبرتي قبل هداد وحبرت بينها هذا لكن جيل دم بعد وحبرت بينها هذا وما بعد صوصات هو يدو مركا waxay noo baahan oo dhan iyada ayay gacanteeda ku jiraan laakiin iyana waxa looga baahan yahay inaynu gaarsiino ama aynu barro wixii ay u baahnayd inaan jahligu ku tiro badan مثلا مثال بسيط أبو سينية انضباط يعني قفكو إنه منظم نقضه ينو فوضوي نقضه إنه قفسك فوضاء نقضه أن وحيس النظام لهين ينو نظام يشا إن بدن المهم أنتو يريه هو يدي بكو حرتي بين هذا على ده هو يدو هذا منظم طي ilmo munadama bay soo saari kartaa oo muntabita ilmo sugan oo aan fawdo ahayn ee wax waliba u qorshaysay midaal waxay yiraahdaan ilmuhu intibaadka waxa uu ugu horbartaa bay yiraahdaan inta uu yariyay haddii inta uu yariyay lagu canqariyo waxay yiraahdaan noloshiisa way raacaysaa tusaale basiitaan ku siiyo waxay yidhahdaan ilmaha yar hooyadu waxay bari kartaa wakhtiga uu kaajayo wakhtiga uu wax cunayo wakhtiga uu seexanayo inay fawdaysana ma aha baa la yidhaahdaa yacni innagu dhaqankeena soomaaliyeed hooyadu aad bay u kalgacal badantay saa daraaddeed ilmaha naxariis badan bay u samaysaa laakiin waxaa aada u roon haddana in la baro inuu muntabit noqdo naaska iyo cunadaba in wakhtiyo go-aan la siiyo aan carruurta cunada lagu fasixin inaan markuu qayliyaba wax la iska siinin laakiin in awqaat loo sameeyo go-an oo wakhtiyadaha go-an unu wax cuno naaska wakhti go-an loo sameeyo oo wakhtiyadaha go-an ununu cabo waxay keensanaysaa bay dhaheen noloshiisu inay muntabit noqoto wakhtigii uu baahan jiray inunu baahdo aan wakhti la baahanin waxa fiican bay yidhahdeen hurdadiisa in intibaata loo sameeyo in wakhti loo sameeyo wakhti uu seexdo wakhti uu soo jeedo wakhti uu cayaaro inuu ilmuhu yeesho taasi waxay suurto gelinaysaa bay leeyihiin in ilmahaasi uu noqdo maxay muntabit inuu noqdo wuxuu u baahan yahay bay leeyihiin ilmaha haddii ilmuhu sidaynu moodayna maaha wax badan buu fahmaa haddii markuu qayliyaba ay hooyaduna ku soo cararto soomaalidii hore waxay odhan jireen wuu farabartay
ama islaam wuxuu odhan jiray ilmaha iga farabarina ii dhig waa mas'ala sax bay yidhaahdaan ilmuhu qaabka qudha ee uu dareenkiisa u cabiraa waa ama qosol ama oohin markuu yar yahay luqo kale ma jirto luqadu waa labadaa un markuu faraxsan yahay ama wixii uu rabay uu raallinimo joogo waa imaa inuu iska seexdo iyo inuu qoslo oo farxo dareen markuu jirana waa inuu ooyo dareen cabsiyeed ha noqdo mid gaajeed ha noqdo wax kasta ha noqdo wax kasta uu dareemo waa inuu oohin ku guto ilmuhu haddii ay la farabaro oo la sidsida uun wuxuu baranayaa muntabit baanu noqonayn in la hayaabuu mar kasta ka jeclaanayaa in meelba la dhigo sida awgeed haddii la dhigaba oohin buu bilaabaya haddii markuu ooyaba islaantu tidhahda haf la soo dhow turusha lagu sido ma aqbalaya hadhow inuu dhulkaba seexdo ama inuu meelba jiifsado idan mithaal basiita waxaan usoo qabanayaa in aynu dareenno hooyadu jiilka xataa mustaqbalkiisa waxa anfacaya o dhan in canqarintan hore ay bari karto haddii markaasi maalan ilmaha haddii xafaayadda laga bedelo oo loo maydho la nadiifiyo oo cunadiisii la siiyo oo meeshiisa la dhiga hadduu ooyo inay dhegba u taagto maaha iska ooyo maalinta hore markuu ooyo hooyada soomaaliyeed waa naqaana adkaysan mayso waa la soo boodisaa laakiin hadday hal maalina aqbasho inay oohinta aanay u dheg taagin wuxuu baranayaa marka dambe aan waxba ka maqnayn inaanu isna kibrin o aanu ooyin wuxuu baranayaa marka xafaayaddii laga saaray ee la nadiifiyey ee loo maydhay ee cunadiisii la siiyey in shaqadiisii u dhammaatay oo isna aqbalo inuu jaaniskeeda islaanta siiyo wixii kale ay qabsanaysay ama reerka wixii kale ay u qabanaysay inuu qabato therefore meeshiisu joogaya intibaadka waxaan uu tilmaamayaa maalan innagu waxaynu ka fikirnaa intibaadka maalan kaba soo qaad xafaayadda marka laga bedelaya carruurta marka dambe ee uu weynaado dee xafaayaddaa laga reebaa laakiin bambarkaa si looga reebo labada casho hore hooyadu waa ku yaro dhib mudataa ha kaajin iyo kolba inta la qabto geeya musqusho lagu celceliyo laakiin marka dambe uu iskala qabsadaa kaadidii awal markuu bahashan xidhnaa involuntarily bay isaga soconaysay damba kamuu lahayn inuu sii daayo inaanu soo daynin waayo alaaba isaga xidhnay saa daraaddeed mar walba uu iska waday laakiin marka dambe wuxuu u baahanaya maskaxdiisa in wax lagu register gareeya ah waktina in la ogoliyo inuu kaajo meelna in loo ogoliyo inuu ku kaajo mar kastabana inaan la ogolayn inuu iska kaajo waxaa la baray markaa inuu muntabit ku noqdo guriga inaanu ku kaaji karin waktiyo gaara inuu kaajo subaxii markuu soo tooso waktigu biyaa cabo waktiyo gaara inta badan inuu kaajo meel gaarana inuu ku kaajo ilmaha yar isagoo waxan inay xun yihiin iyo inay san yihiinba kala baran baa waxa lagaga dhigay shaygan inay muntabit noloshiisa regular inay ku noqoto noloshiisa saasi daraaddeed involuntarily buu u qaatay markay kaadu qabato musqushu tagaya uu kasoo noqonaya saatan idan waxaynu leenahay jiilka aynu ka rabno inay mustaqbalka hogaamiyaan waxaynu u baahanay hooyadu inay ka fekerto intan la canqarinayo in weliba laga fekero inuu naasku yeesho wakti uu jaqo inay hurdadu yeelato wakti uu seexdo inay xafaayadda laga bedelaya wakti yeelato cayaarta lala cayaaraya ama la sigsidaya inay wakti yeelato taasi waxay baraysaa baynu leenahay fi lmustaqbal inaanu ilmuhu fawdawi noqonin ee inuu wixiisoo dhami timetable noqdaan inuu qof wakti ku socda uu noqdo mustaqbalkiisa waxaa la mid a baynu leenahay hooyadu maalan iminka waxaynu leenahay madaxdii cadaaladdii baa loogu taagalay kan hooyada cadaaladayna bari karta hadday ku tala gasho haddii guriga ilmuhu markuu yaryay wuxuu nebigu tilmaamay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh carruurta in loo cadaalad falo nin baa u yimi nebiga wuxuu ku yidhi ilmahayga kan waxaan siiyey ghulaam yacni addoon yaroo kale baa siiyey ee markhaati uga ahow nucmaan ibnu bashiir aabihii nebigu wuxuu ku yidhi carruurtao dhan ma wada siisa may buu ku yidhi dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi waan anigu jawrka dulmiga kama markhaati gale iga tag buu nebigu ku yidhi saxaabigan muxuu nebigu barayey carruurtiisa inuu cadaalad sameeyo maxaa min alcadaala ka mid ah 4 carruuraad dhasho guriga jooga inta ugu badan le inagu priority-ga ka ugu yar baynu siinaa wuxuu dadka ku qabsaday kastaba waxaa la yidhahdaa aaba wuu kaa yaryahay u sii dah wuu kaa yaryahay in lagu wado maaha waa in lagu wadaa waa kiisii adigu sii dah cadaaladdu baranaya marka wuxuu baranayaa inaanu iminka ilmaha soomaaliyeed marka la geeyo nurseryga ama iskuulka la geeyo iskuulkaba wuu qasaa kan istigada ka qaad kan qalinka ka qaad kan buug ka qaad waayo waa nin u sii daa ku bartay waail kuwa kale ilmahooda aanay kugu qabsan maxay kugu qabsan waa carruuruna waa carruur waa isku mid inagu waxaynu iska dhaadhicnay ilmaha soomaaligu waa firfircooni dheeraad u qaba ama waa dad rabshada ku dhasha qofna rabsho kuma dhasho qof walba waa saa loo train gareeyo
laakiin ilmahan yar markuu gurigooda joogay ayaa waxaa la baray wixiisana inuu lahaado walaalkiisa ka weyn wixiisana inaanu taabanin hadduu kaga dhegana in la yidhaahdo melihid adigu yar raalli ahaw ninkan isagaa intan leh ka weyn way fiicanta inaad barto iihaarka in la baro walaalkiisa ka yar inuu ixtiraamo inuu wax siiyo in la baro ka weynna laakiin maaha in la yidhaahdo siidaa waa isagaa yaroo ooye waa ka ooye u siidaa in la yidhaahdo maaha ee waa in loo weydiiya hadduu isagu u siinayo ha siiyo laakiin ka yari waa inuu bartaa waxaanu lahayn inaanu qabsanin idan cadaaladdu ku baranaya haddii kale hadhow markuu weynaado mujtamaca wax walba uu ku qabsanaya haddaanu kala baranin waxa uu leeyahay iyo waxa kayrkii leeyahay haddaanu kala baran marka waxaan uga jeedaa jiilka soo socda soo saaristiisu dee waxay leenahay maadaama hooyadu dhalistiisuba iyada ay ka timaado soo saaristiisa kaloo dhamina inta ugu badan la isaga ayaa ku xidhantay weliba inta uu yar yahay oo ah bayn leenahay wakhtiga ugu khatarsan yahay ee wax walba si fitriya uu ula kulmo wax walba wuxuu u qaataa involuntarily buu isaga qaataa sidaa awgeed waxaa habboon hooyada inay xil badan iska saarto idan waxaan warkayga kusoo koobayaa hooyadu waa asalka mujtamaca hooyanimaduna waa shaqada ugu fiican ma aha shaqo siday gaaladu ama intooda dawaqsan ay rabaan inay u sheegaan oo ah islaamtu ma madbakhaya intan bay ka shaqaynaysa ka shaqayn maysee waa warshadii bulshadaba soo saaraysay yani waddanku hadduu leeyahay warshado gawaadhida sameeye kan sameeya warshad buu baahayay bini aadam soo saartaa waayo waa bini aadam gawaadhidan iyo waxaan kaloo dhan samaynaya idan waxaan leenahay shaqada ugu sarraysa ee bashar uu qabtaa waa in qof bini aadama la dhalo oo la kobciyo waana shaqada hooye qabato idan hooye shaqadeed ayaa ugu sarraysa shaqo la qabto oo ah in bashar la dhalo la kobciyo la barbaariyo hooyadaasi sida ay wax u rabaysana wuu noqonayaa mustaqbalka ummadda tani sida ay wax u rabayso buu noqonayaa mustaqbalka ummadda tani nebiguna salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamayay ilmo kasta wuxuu dhashaa isagoo fitrada ah cala alfitra isagoo ah buu dhashaa oo ilaahay yaqaanoo toosan laakiin aabbihii iyo hooyadii ayaa ama yuhuudi ka dhiga ama kristan ka dhiga ama majuusi ka dhiga lama odhan ama muslim ka dhiga yacni fitradii saliimka ahayd buu ku dhashay islaamnimaduna taasay waafaqsantay laakiin inxiraafka maxaa u keena almu'ahiraat alkhaarijiya idan hooyadu waa cidda koowaad ee ilmahaasi ama inxiraaf ka ilaalin karta ama inxiraaf ku beeri karta si awgeed waxaan kusoo koobayaa hooyadu waa cidda sinaacatul ajyaal samaysa ee dowr odhan maaya iyadaaba ka soo dhashaa jiilka soo socdoo dhan wallahu aclamu billahi towfiiq جزا الله الشيخ مصطفى خير الجزاء والله ليا halka waxay noogu dhamaatay muxaadaradii labaad oo inoo akhriyay walaalkeen sheekh Mustafa kadib waxaan u galeynaa dhowr su'aalo insha Allah ta'ala ma badna su'aalo su'aasha koobaad waxay leedahay جزاك الله sheekh Mustafa maxay noqonaysaa marka aad mujtamaca dad badan ku soo kordhiso oo aadan awoodin tarbiyeyntooda waxaa u jeedaa gabadhu haddii yurub caruur badan aan ku dhalo oo aan awood u lahayn inaan tarbiyadeeyo oo jiil muslima oo sax aan soo saaro dhalidda faraha badan saa la isu qabatiinaya waxaa jira mujtamacaadkaynu la noolahay waa mujtamac qaab nololeedka uu u dhisan yahay aan odhan karno wuu u dhib badan yahay qaab nololeeda buu u dhisan yahay haddii la rabo in si fiican loo noolaado ama standard of living ay rabaan in lagu noolaado inta badan qaab nololeeda buu u dhisan yahay inay hooyada iyo aabuhuba shaqo tagaana waa dhib haddana waxna waa mashkil waa dhib waxna waa suurtagal baan leenahay waxaan uga jeedaa mar kasta oo caruurtu ay badan tahay kobcintoodu si kasta oo loo kobciya waa mushkilad way leedahay ama ereyga mushkilad yaan isticmaalin dhib bay leedahay waayo mushkiladdu waa waxaan xal loo ahayn inta badan mushkilad ma aha ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqih horta bini aadamo waa daalaysaa baa ilaahay leeyihi ee xagga alle u daal haddaad 4 dhasho iyo haddaad 2 dhasho iyo haddaad 10 dhasho kolleyba waa daalaysaa
laakiin waxaa loo baahan yahay daalku inuu noqdo daal wax soo saar leh nolosha tani raaxo kale ma jirto noloshan waxaa laynoo keenay in layna itixaamo insaanku wuxuu halkan u joogaa walaqad khalaqna alinsaana fii kabad beer xanuun baa idinku dhex abuuraa la yidhi idan always you are in a problem nolosha tanina maalintaad mushkilad xallishaba mushkilad kalaa bilaabmaysa insaankuna nolosha saasuu ku dhammaystaa idan waxaan leeyahay hooyada muslimadda dadaal waa dadaal waa midda labaad aan tilmaamayaana waxa weeyaan ilmuhu sida alle kuu kala siiyey u kala horeeyaan haddii dadaalka lagu badiyo kuwa dambe way fudud yihiin tarbiyintooda ilmaha hore haddaad ka koowaad iyo labaad weliba ka koowaad haddaad juhdi fiican geliso oo uu kuu suurtoobo inuu islaaxo waxay u badan tahay inaad kaba nasan karto inta dambe kobcintooda iyo suu kobcaya ilmuhu waa silsilad isdaba socota inta badan oo si wada korta saa daraaddeed haddii kuwa waaweyn marka hore si fiican loo galo hooyada in badan waxaa kaga filan intan rooroo ayaa inta yaryar waayo inta yaryari waxay helayaan qudwo ay ku daydaan cid ay ku daydaan hadday tahay iskuul cid ka caawisa hadday tahay qaabkay u fakerayeen hadday tahay qaabka loo diras garaysanayo hadday tahay qaabka loo noolaanayo yacni waxay noqonayaan seerkal mujtamaca mar kastoo caruurtu ay yar tahay qudwadoodii iyo waxoodii way soo yaraanaysaa idan waxaan uga jeedaa uun caruur badan iyo kuwo yarba waa la korin karaa kugumase diidani in dhib badan ay ka jirto wadamada tan kobcinteedu laakiin waxaan kuu sheegayaa uun inay tahay wax lagu janno tago qofka muslimka waa janna wuxuu raadinayaa ilmo saalixa inaad dhashaa nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh camalka qofka bini aadamkii wuu go-aa marka uu dhintay dhammaantii ilaa iyo buu yidhi nebigu 3 shay sadaqo jaariya uu ka tegey cilmi dadku ay anfacsadaan oo uga tegey iyo waladun saalixun yadcu lahu idan waa aakhira uu xoogsi ilmaha fiicani wuxuu kaloo yahay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu tilmaamayaa jannada isagoo uu waalidku ku jiro ayaa la yidhahdaa halkan jannadaad joogto ka kac meel ka sarraysa aad helaysaa wuxuu yidhahdaa ilaahayow saan ku helay halkan sare waxaa la yidhaahdaa biistikfaari waladik ilmihii kaa dambeeyaa ilaahay dembi dhaaf kuu soo weydiiyey dabeetana jannadii meel ka sarraysaa ilaahay ku geynaya ka bax waxaan uga jeedaa dhibta yare soo zaa'idaysa ha ka fekerin jannaad ku raadsanaysaa ilmo saalixa inaad soo korisaa waa dunida qaabka aakhiro loo xoogsadaa buu ka mid yihi waxaynu noloshan raadinaynaana waxa weeyaan aakhiro inaynu meel fiican ka galno idan ilmo tiro badan oo khayr qaba haddaad dhasho wax wanaagsan oo tiro badan baad soo kordhinaysaa ee iyaan caqliga yurub inaga badanin wallahu aclam su-aasha labaad waxay tahay waxaan ahay gabar soomaaliyeed oo degan Leicester waxaa jirta inaan guriga aan deganahay ka helay dahab waxaa guriga iga horreeyay hindi iyo gabdho Soomaaliyeed gabdhihii Soomaaliyeed waan weydiiyey ma lihin bay yiraahdeen markaa walaalayaal maxaan ku sameeyaa dahabka ciddii ilahayd haddii la garanayo waa la siinayaa hanti kastoo ciddii ilahayd la soo heli karo ha la siiyo sababtan tilmaamaysa dadkii ka horreeyey hindidii ka horreysay wixii ka horreysay hala raadacay se hindiga wixiisa loo raadacayn maayo yani waxaa muuqata in gabadhii Soomaaliyeed la soo helay laakiin aan hindiga aada looga fekerin hindigu hantidiisii ha loo raadacayo hala siiyo wallahu aclam su-aasha saddexaad waxay leedahay laba aan tukan meherkoodu ma ansaxba wadaadka u meherinaya go-aanka gaari doona waa laba aan tukanin meherkoodu ma ansaxbaa bay yidhaahdeen wadaadka meherinaya go-aankaas kala dee ruuxa afraad wuxuu leeyahay walaal waa salaamantihiin dhammaantiin walaal waxaan doonayaa in aan ilaahay dartii uga hijroodo dhulkan ee waxaad igu soo ducaysaan kow inuu ilaahay ii fudeeyo hijradaas tan labaad carruurta ilaahay inuu ii sakhiraan ii soo duceeyo jamcaa dhan bay duco weydiisanaysaa allah kuu fudaydiyo waxaad doonayso khayr leh su-aasha shanaad waxay leedahay maxay shareecada diinta islaamku ka qabtaa carruur in carruurta la kala koriyo haddii ay su-aashu tahay haa dariiqe waa su-aasha hadda laga jawaabaan marinaya taas
ruuxa afraad wuxuu leeyahay sheekh waxaad sheegtay hooyadii iyo habaryartii haddii hooyo dhimatay habaryarna daryeel wanaagsan haysato hooyo ma geli kartaa booskeedii habaryar wixii samafale aad u samaynayso markasta dee khayr baad ka helaysa yani qofku markuu daryeel wanaagsan haysto miyaan loo samafali karin yani soomaalidu mala daryeelka inta badan waxay uga fekerayaan un xoolaha haddii qofku waxoogaa dhaqaalaha iska haysto iska noolaan karo miyaan loo samafali karin yani samafalku wuu ka ballaadhanyay dhaqaale laysa siiyo inaad xidhiidhiso waalid uu kuu yahay way ka gedisantahay dhaqaale uu laysa siiyo oo qura noloshu maaha idan qofku isagoo wax haysta iyo isagoo madaxa iyo isagoo kaa roomba waa loo samafali karaa samafalku waa shay caama in loo samafalaa laakiin uma jeedo un yani in biil la siiyo qura su-aasha lixaad waxay leedahay ingiriisi bay ku qoran tahay maxaa ku sababa soomaalida dabeecadahan xun ee ay khaas ka leeyihiin in su-aasha soo koobo dabeecado xun ay bani aadamka kaga gedisan yihin dee garan maayaan yani wax soomaalinimadu ay wadato environmentsku waa laga yaabaa inay dee culture xun dadku ay ka bartaan laakiin dabeecad soomaalinimo ay wadato u gaaro oo xumaa oo gaara ma garanaya haddii dee la tilmaamo malaa waxbaan ka yeedhan laakiin ma garanaya caruur korinta ka warramsa gabadha ya caruurta la karinayo qaabkan lagu karinayo foosha caruurtan soomaalida ee dhibka badan caruurta soomaalidu ma dhib badna waa caruur muslimnimo ku dhalatay laakiin ihtimaamkaynu siinaabaa qaldan weliba gaar ahaan markaynu galbeedka nimi markaynu joognay wadanadeeni waxaa laga yaabaa tarbiyadaba inaynu xil saari jirnay cid kale macallinka qur-aanka dhiga iyo iskuulka laftiisa oo dee dad muslimiini joogeen iyo dadka jaarka kula ah oo dee dhaqan islaamun iska haysta iyo bulshada cumuuman dee dad muslimiin ahaa reerkuna inta badan uun odayguna inuu soo xoojiyo lacag keeno islaamtuna inay dheriga ugu rido u kariso oo u nadiifiso oo dharka u hagaajiso aad moodaa inay ka fekeri jirtay laakiin marka aynu nimi bulshooyin dadka sida loo korinayo siyaasiyiintu ay ka fekeraan oo iyagu sida ay rabaan ay u koriyaan yacni markaan si kale u sheego dowladaha dunida cusub hadda ayaa ka gumaysi badan marka baabka tarbiyadda la yimaado dowladihii berigii hore boqortooyooyinka ahaan jiray boqortooyooyinkii hore inta badan waxay dad kale ahaan jireen maxay dee xagga xoolaha iyo lacagta iyo inaan kursiga siyaasadda agtiisa lasoo marin iyo waxaasay ka gumaysan jireen laakiin iminka dowladaha cusub ee dambe inta badani waxa weeyaan fi'ada yare siyaasiyiinta ee waddankaa xukunta ayaa dejisa politicska ah qaabka waxbarasho iyo ummaddu sida la rabo inay u ekaato yacni hay-adda siyaasigaaba waxay dejisaa qofka ingiriiska ahi waa kuma waa qof caynka waag waa qof dhaqankee leh maxay leh markay qofkaa isla gartaan baa loo dejiyaa syllabuskii iyo curriculumkii iskuullada iyo jaamacaadka ee qofka soo saari lahaa haddii markaa aad timaado bulsho siyaasiyiinteeda aydan isku caqiide ahayn ama isku afkaar ahayn ama isku caynkan ahayn waxaa timi bulsho confrontation idinka dhexeeyo oo politicskeedii qaabkii uu u deganaa in basharka loo koriyey qaabka aad rumaysantay uu kala gedisan yihi idan waxaan odhan karaa duwalka cusub ee maanta dunida ka jira way ka faragelin badan yihiin duwalkii masaakiinta ahaa marka loo eego kormaha ilmaha oo kuwan ilmahaaga waxaad moodaa dee ilmaha waxa la siiyey ummadda dowladdaas kale iyo dadka sidii la rabaa loo korinaya marka waa laga yaabaa yacni dhib badan markaynu dhul caynkaasiina nimi inana aan ihtimaamkeenuba tiro badnayn dee waxa ka ratibmaya wuu dhib badanaya haddii laakiin dee aynu u fekerno oo caqli iyo dhaqaale iyo xoog iyo dadnimo waxaynu leenahay baynu gelino oo matalan mujtamacaan isku xidhanno hanti ahaan aada aqbasho inaad ilmahaaga geliso inaga waxaynu jecelnahay ilmaha inaynu daar u dhisno daarta isagaa dhisan doona isaga dhis daarta inaad kusii ordayso isagaa dhisi qof waliba isagaa bini aadam isagaa nool oo wixiisa soo saaranaya adoo halkaad daar u dhisi lahayd isagiina uu sii lunsan yahay waxba tari mayso isaga geli $30,000 ee daarta ku dhisayso hadhow markuu nin raga noqdo isagaa daartiisa dhisanaya isagaa helaya meeluu galo
idan inagu waxaad moodaa qaabkaynu weli u fakerayna iyo ilmahan dhibta inaga haysato aan is lahayn laakiin ilmuhu eed ma leh ee waa weyga aynu ula dhaqmaynaan isleeyahay iyo environmentka inugu xiranoo mushkiladiisa leh wallahu aclam su-aasha kale waxay leedahay walaal waxaan ku weydiistay inaad iiga jawaabto su-aashan waxaan ahay hooyo la furay oo ilmaheedu afrika joogaan xaqna iigu leeyihiin inaan biiro waa su-aasha koobaad waxay raacisay midda kale walaashay ninka qabaa maxram may yahay walaashaa ninka qabaa maxramku ma aha maxramka shareecadu ay taqaanaa waa ka abadiga ah maxramka midna waxa weeyaan waa mid muaqata walaasha hadduu berri furo dee wuu ku guursan karaa marka waa muaqit laakiin ka maxramka rasmiga shareecadu ay taqaanaa waa ka abadiga ah yacni qofka ay weligiiba kale xaaraan tihiin ee aan guuriso keen qabanin kaas baa maxramka la yidhaahdaa caruurtaada inaad beelisaa waa su-aal adag yani markaan leeyahay waa su-aal adag waxaan uga jeedaa hooyanimadu biil way ka weynti waa ubadkii aada dhashay inaad koriso oo ilaaliso hooyanimada ka mid tahay asliyan markay biil tahay aabahood baa lagu leeyahay hadaan u dhimanin yani asliyan nafaqada caruurta hooyadu mas-uulka ma aha bale keedaanay mas-uulka ahayn waxay ahayd inuu nafaqeeyo maxay ama cidda qabta ama cidda la joogta ama cidda caynkan saa daraaddeed asliyan biil kuguma le biilka aabahood bay ku leeyihin laakiin aabahood aa beris qabatay yuu kuu muuqanina waa ilmaha dashay wallahu aclam su-aasha ugu dambaysa asalaamu calaykum walaal ka waran shaqada tagsiga ma xalaal baa iyana sharax hadday xaaraan tahay shaqada tagsigu hadday xaaraan tahay iyo sharax waxay xaaraan ku tahay horaa culammadii inuga waranteen iyaga weydiiye tagsiga Leicester jooga waxba ka warrami maayo Leicester culamana waa joogtaa intaana waa laga warramayay iyaga hala weydiiyey walaalayaal halkaa waxay noogu dhammaaday muxaadaradii labaad